Assalaamu calaykum subax wanaagsan maanta waxaa idin wadaa muuqaal cusub noloshu waa wareegto maalin walba guji ayay kula imaanaysa ku qaabil hadba wejiga ay kula imaado saddex afartan shay qofkii dabeecad ahaan u leh ka fogow qofka ku yaso u arka inaad ka hooseyso qofka ku isticmaala danihiisa uusan ka fikirin dantaada kan saddexaad qofka beenta mar walba uu kuu sheego kan afaraad qofka aan ku xishmeynin ee isaga doonay mar walba in la xishmeeyo hooyadey waxay leedahay carfiga iyo udgoonka dhammaan waxyaabaha dunida yaala maanta waxaan baranaynaa in haybad ay ka qurux badan tahay aamusnaanta ku niri waxaan ku yiri afartan shay qofkii leh dabeecad ahaan ka fogow qofka ku yasa qofka ku isticmaala danihiisa qofka mar walba beenta kuu sheega qofka aan ku xishmeyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.